Google Play Store ka aad tegeysaa, kadib waxaad qoreysaa MT4 caadi ah ayaad qoreysaa, waxaad leedahay searching ayaad leedahay, waxaa kuu soo baxaayo MetaTrader 4 Forex ayaa kuu soo baxaayo. Kadib aniga hadda wuu igu jiraa, adiga hadduu iskugu jirin install soo dheh. Install markaad soo tiraahdo dan waxaan leenahay open ayaan leenahay, isla fiirineynaa marka. Waxaan rabnaa marka inaan account ka furano. Account ayuu noo furay oo practice ah. Marka waxaan rabnaa marka inaan account ka furano. Account oo noo furay isla markii waa kana. Waxaan rabnaa marka account-kan waa iska dhaafeynaa, ku kale inaan furano anaka aan leenahay si aan practice ugu sameyno ayaan rabnaa. Waxaan la taabaneynaa calaamadan plus-ta kore ayaan taabaneynaa, add email, kadib waxaan add accounts aan taabaneynaa. Okay, open demo account ayaan ku dhufaneynaa. Kadib waxaan raadineynaa broker-ka aan rabno inaan ka furano practice account ayaan rabnaa. Marka waxaan qoreynaa Primus Market. Primus Market ayaan qoreynaa, practice live oo soo baxay. Kaas soo baxay ayaan ku dhufsaneynaa. Kadib halkan wuxuu leeyahay aniga magac ayaan hore ugu qoray. Magac rabta adigu ku qoran kartaa. Hadda magacaas ayaan ku qoranayaa. Waxaan gelinayaa number-keyga, sidoo kale email-ka waad u jeedaan. Halkan ay ku qoran tahay account type, account information, meesha ka hooseeda account type. Waxaan ka dhiganaynaa ECN ayaan ka dooranaynaa. Leverage-ka sidoo kale waxaan ka dhiganaynaa 1.500 ayaan ka dhiganaynaa. Deposit-ka 3,000 ayaan ka dhigaynaa si aan ugu ekaysiino macnaha lacag real ah, lacag yar xoogaa macnaha si aan ugu bilaabno. Marka 3,000 ugu yar, 3,000 ugu yar aan dooranaynaa. Okay, marka waxaan leenahay create account ayaan leenahay, kadib dhan ayaan sii dhahaynaa. Hadda waxaa inoo furan account practice ah oo aan rabno inaan ku isticmaalno Forex sidaan lacag u sarrifno. Marka halkan ay ugu jeedaan hadda waxaa weeyaan marka meeshaan waa meesha lacagaha markii aad rabtid inaad sarriftid listigooda aad halkan watch listiga lacagaha aad kala soconaysid. Halkan waa chartiska aad kala soconaysid. Halkan waa trade-ka ku furan meesha aad kala soconaysid iyo balance-gaada iyo equity-gaada meesha aad kala soconaysid. Halkan waa history of trade-kaada. Okay, marka aan ku hormarno watch listigan aan ku hormarno haddaad taabto lacagihii waaye. Si aan u soo badsado marka lacagaha watch listigii ah waxaan taabanayaa calaamadda plus-ka ah ayaan taabanayaa. Calaamadda plus-ka ah markaan ku dhufto waxaan taabanayaa oo kaleeto haddana waxaan tegayaa Forex meeshay ku qoran tahay ama FX2 meesha ku qoran tahay. Kadib mid walba waa taabanaysaa si aad u soo gelisid watch listigaada. Mid walba taabso lacagaha aad rabtid aad taabanaysaa ama kulligood baa wada gashan kartaa. Okay, marka hadda watch listig waa isla wada aragnay. Chartiski trade-yada noo furan meesha aan ka fiirin aan balance-geena, history of trade-ka meesha aad kala soconaysid. Okay, hadda marka watch listigi lacagihii watch listiga waad u jeedin oo aan rabnay trade inaan ku furno ama aan ku galno. Halkan ayaad ka dooranaysaa. Chartiga wax kale ma ahan, waa chartigan lacagta chartigeeda. Halkan waa balance-gii, equity-gii iyo margin-kii meesha aad ka fiirin lahayd. Okay, halkani waa history of trading-kaada. Halkan ayay soo galayaan waxaa sameeyay last week, last month, last 3 months lacagihii ugu dambeeyay wixii ka sii dambeeyay halkaas aad kala soconaysaa history macnaha trade-yadii aad sameysay. Okay, sidaa darteed hadda waxaan rabnaa in aanu isla aragno trade inaynu furno si aan u isticmaalno. Okay, trade-ka aynu galayna maxay tahay? Signal tusaale ahaan signal lagu soo diray, signal-kaas isticmaal ayaa lagu dhahay. Signal-ka wuxuu noqon hadda aan isla fiirino groupkeeni Telegram-ka haddii aad ku jirtid signalada aan ku soo dirno waa kana saakii signal-kan soo dirnay waa kana
JBP USD waxay ahayd waxaan soo dirnaa TB iyo SL iyo waxaan soo dirnaa iyo entry oo la socoto at macnaha at meesha waxay la socoto waxaa waaye entry meesha suuq laga galay marka lagu yiraahdo signalka qaado sida aad u qaadanaysid waxay tahay saddexdaas lambar marka lagu soo diro only waxaad qaadanaysaa TB iyo SL labada lambar ku jirta lambarka atka la socdo waa iska dii kartaa marka lacagta ayaan soo fiirinay lacagta waxaa weeyaan JBP USD waa lacagta Great Britain pound iyo lacagta USD dollarka marka waa tan lacagtii marka ayada ayaan taabanaynaa new order ayaan leenahay sidaan ayaa ku soo baxayso SL ka lambarka SL ku qoran tahay halkaas ayaad gelinaysaa wuxuu ahay 1.29.4 kan TB gan halkan ayaad gashanaysaa 1.369 okay numberkan halkan uga jeedid halkaas waa lot size-ka aad rabtid inaad mar walba ku isticmaashid marka haddii lacagtaada ay tahay 3,000 aan hadda ku isticmaalaynay waxaad isticmaali kartaa waxa ugu yar oo la isticmaalana waa 0.01 qofka $100 maanta ku isticmaalaya wuxuu isticmaali karaa 0.01 lot size ah ayuu isticmaali karaa marka aad u xakamee lot size-kaada haddii aad rabin inaad khasaaro badan gashid halkaas ka xakun lot size-ka aad isticmaalaysid saan waad ku geli kartaa 0.5 waad ku geli kartaa 0.80 waad ku geli kartaa 0.9 waad ku geli kartaa marka ha iska badinin hadda marka aniga waxaan ku gelaynaa 0.10 oo dhiganto $1 marka waxaynu leenahay waxaan u gelaynaa buy ayaan u gelaynaa marka trade-ka hadda wuu noo furan yahay dhan trade-ka marka hadda noo furan waxaad kala soconaysaa halkan ayaad kala soconaysaa kani waaye watch listiga lacagihii chartigi trade-ka marka noo furan kaad kala soconaysaa marka isla markii lacagtan hadda waxay tagtay 80 senti oo minus ah ayay gashay marka signalkii aan soo dirnay ayaan isticmaalaynaa sidaas ayaad macnaha aad signalku isticmaalaysaa faraad ka qaadaysaa haddii lagu soo diro signal kale lacagta ayaad halkan ayaad tegaysaa waxaad dooranaysaa lacagta ayaad soo dooranaysaa lacag kale lagu soo diray lacagta ayaad dooranaysaa waad taabanaysaa new order leedahay signalka SL halkaas aad gashanaysaa numberka SL ka halkaas aad gashanaysaa numberka TB din halkaas aad gashanaysaa halkaasna waa lot size-ki ku xagumayay oo mataqaan lacagta aad sarifaysa intay la eg tahay halkaas ayaad gelinaysaa marka aad uga taxadar lot size-kaas meeshaas lambarkaas aad uga taxadar hadda waa ka trade-kan furnay waa ka 10 biiba oradaha ayuu dhaqaaqay isla markii marka isla socod wanaagsan signaliska aan soo diraayo ka faa'iideysta asxaabtiina u share gareeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu sidaa iyo si ka duwan inoo baran insha allah cashirka loo ka xiiso badan insha allah haddii ilaahay